kusoo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha maanta waxaan kusoo qaadan doonaa wararka suuqa kala iibsiga iyo kulamadii xalay ilaa iyo shalay la ciyaaray ayaan barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa haddii aan u guda galno barnaamijkeena waxaa shalay wada ciyaaray kooxaha Manchester United iyo kooxda lagu magacaabo Southampton ayadoo afka ciida loo daray kooxda Manchester United markii lagu xarqiyay goolal 2 gool iyo gool ah habti koowaad ciyaarta markii ay bilaabatay ayaa lagu shubay kooxda Manchester United goolkii koowaad markii ciyaarta kaambiyadii dambe dib loo soo noqday ayaa laga dhaliyay goolkii labaad ee kooxda Manchester United markii hal gool ay iska soo celisay kooxda Manchester United ayaa xal ku furatay horyaalka Premier League guul daro markii afarta ay fadhiyeen waxay u maleynayeen oo horyaalka la isku diyaarinay macallin Ten ayaa durba ku furtay horyaalka Premier League guul daro sidoo kale kooxda Man City ayaa xal ciyaartay ayadoo ku badisay 2 gool iyo gool uga badisay kooxda lagu magacaabo Brighton labada gool waxa uu dhaliyay xidiga lagu magacaabo Haaland ee dhawaangalka ah ee kooxda Man City kor wara ahay gool caadi ah uu dhaliyay kooxda Man City sidoo kale kooxda Barcelona ayaa xal ayadana badisay ayadoo wacdara dhigta xalay kooxda Barcelona markii 6 gool iyo eber xal ku badiyeen Lewandowski xal gool u dhaliyay xidiga De Jong ee la dhahay waxa qaadanayaan kooxaha Chelsea iyo ay ku dagaalamayeen iyo kooxda Manchester United marka Barcelona aqligooda manigas beer waa inay iska fasaxaan oo la dhibaato idin ku tahay hadii aad De Jong ka dirtaan garoonka Camp Nou sidoo kale wararka suuqa hadaan u guda galno kooxda lagu magacaabo Manchester United ayaa doonaysa xidiga loo nizaan inay ka dhigato bedelka xidiga Cristiano Ronaldo oo wali mustaqbalkiisa oo saacad aan loo cadeynin kooxda lagu magacaabo Liverpool ayaa doonaysa in ay soo qaadato xidiga lagu magacaabo Fernando inay sabkeeda ku soo darsato halka kooxda Manchester United ay doonaysa xidiga lagu magacaabo Anandovich inay soo qaadato ayadana maadaama hadda horyaalkii oo bilaw maro lagu shuway 2 gool koox yar ee lagu magacaabo Southampton ay ka dhalinayso warba u yaalo madaxweynaha kooxda Barcelona ee lagu magacaabo Laporta ayaa sheegay inuusan ka bixi doonin kooxda xidiga lagu magacaabo De Jong oo xalay kooxdiisa gool u dhaliyay asagoo sheegay in uusan bixi doonin xidiga uu joogi doono garoonka Camp Nou uusan meel u soconin ee nasiib haysan doonaa ayadoo kooxaha side ku raadinaya kamid tahay kooxda Chelsea iyo kooxda Manchester United ay ku dagaalamayeen hadayna bedelkooda ka raadsadaan marka hadii uu madaxweynuhu yiri ma baxay koox kale ka raadsada xidiga Timo Werner ee ka tirsan kooxda Chelsea ayaa wada hadalkiisa ee kooxda ay kula jirto kooxda Chelsea kooxda lagu magacaabo Leipzig la dhameystiri kara asagoo ku biiri kara maalmaha soo socda Wayne Rooney ayaa sheegay in ay horyaalka Premier League sanadan qaadi doonto kooxda Man City asagoo sheegay horyaalka wuxuu yiri Man City ay iska leh sanadan farta ayada laga saaray wuxuu yiri Liverpool waa koox adag laakiin wuxuu yiri horyaalka Man City iska leh asagoo sheegay hadii Haaland ay ka tatay Man City horyaalka ma seegi doonto ayada la daldal doonto waan arki doonaa horyaalka cidi qaadi doonto maadaama kooxihii dhan ay ku furteen qaarna guul daro ay ku furteen qaarna ay ku furteen barbaro sida kooxda Liverpool oo kale barbara lagu celiyay Chelsea oo kale hal gool ay ku badisay Man City oo kale 2 iyo eber ay ku badisay Manchester United 2 iyo hal ayada looga badiyo Arsenal oo kale ayadana way badisay waxay yarka badino marka horyaalkan arkayna hadda maadaama bilow uu yahay oo usbuuci koowaad uu yahay fadlan haddaad ku cusub tahay page-kan inoo like garay noo share garay gambaleelkana furo ay ku soo gaaraan wararka ciyaaraha soo galina maalin